nin safrayay ayaa saxaraha dhexdiisa ka helay qayb weyn oo dahab ah. Isla markiiba wuxuu eegay saaxiibkiis oo meel aan ka fogeyn ka shaqaynayay. Cabaar markii uu ka shakiyay ayuu go'aansaday inuu u sheego wixii uu helay. Saaxiibkiis wuxuu la soo baxay shidaal ligtar si uu u tijaabiyo macdanta. Dahabkii wax isbedel ah ma samayn markii la gubay. Waxay isweydaarsadeen dareen farxadeed waxayna isla markiiba qaateen qalab si ay u bilaabaan qodista. Xididka dahabka wuxuu u muuqday mid sii fidayay intii ay qodayeen. Waxay qodayeen muddo dheer laakiin hoos uma gaarin. Waxay keeneen xarig waxayna isku dayeen inay dahabka ku soo saaraan gaari laakiin xarigii si degdeg ah ayuu u go'ay. Waxay u muuqatay in qayb weyn oo dahabka ka mid ah ay weli dhulka hoostiisa ku aasan tahay. Farxad ayay la qayliyeen laakiin dhibaato cusub ayaa soo baxday sida loo qaadi karaa dahabkan. Waxay go'aansadeen in midkood uu raadiyo cagaf ixafator safarkaas oo ahaa mid qaadan lahaa ugu yaraan 5 maalmood midkoodna ma doonayn inuu ka tago dahabka. Saaxiibkiis ayaa sheegay inuu khibrad u leeyahay nolosha saxaraha sidaa darteed uu isagu joogayo. Ninkii kale si cagajiid ah ayuu ku aqbalay. Maalintii xigtay wuxuu uga tagay cunto iyo telefoonka dayax gacmeedka satellite phone kadibna wuu iska tagay. Ninkii ayaa dib u aasay dahabkii wuxuuna bilaabay inuu keligii sugo laakiin maalmaha saxaraha waxay ahaayeen kuwa aad u adag. Markii cuntadii ka yaraatay wuxuu ku qasbanaaday inuu waqtiga isaga dhaafo hurdo. Laakiin markii uu soo toosay wejigiisa waxaa gubtay qoraxda kulul. Wuxuu bilaabay inuu isweydiiyo in arrintan ay u qalantay. Wuxuu go'aansaday inuu qaato gabal weyn oo dahab ah isagoo u malaynaya in intaasi ku filan tahay oo uusan naftiisa halis gelin. Isla markaas taleefankii dayax gacmeedka ayaa soo dhacay. Wuxuu ahaa saaxiibkiis wuxuuna ku dhiirigeliyay inuu sii joogo dahabka agtiisa. Ninkii wuxuu sii adkaystay maalin kale. Maalintii labaad cunto iyo biyo toona ma jirin. Si dirqi ah ayuu u adkaysanayay laakiin si lama filaan ah haweeney ayaa ogaatay sirta uu qarinayay. Waqtigaas wejigiisa waxaa si buuxda u gubtay qoraxda. Naxariistii hore ee uu lahaa waxaa meesha ka saartay damac. Maalintii xigtay wuxuu helay wicitaan kale oo saaxiibkiis uga yimid kaas oo u sheegay inay qaadan doonto maalmo dheeraad ah. Si lama filaan ah gaari ayaa ka soo muuqday meel fog waxaa laga yaabaa inuu dahabka qaadan karay oo uu gaariga joojin karay si uu u badbaado laakiin wuxuu doortay inuu isqariyo isagoo ka baqaya in la ogaado. Isla markii uu gaarigii tegay duufaan ciid ah oo xooggan ayaa dhacday. Teendadii ma xamili karin dabaysha daran. Markii uu mar kale soo toosay wuxuu arkay isagoo si xun u dhaawacmay. Ninkii aad buu u tabar darnaa laakiin wuxuu weli isku dayay inuu u gurguurto dahabka isagoo miyir daboolan wuxuu arkay haweeneydii oo meyd ah. Gaajadu waxay ku adkaysay inuu kala saaro dhabta iyo male awaalka. Si lama filaan ah codkii haweeneyda ayaa hadlay. Waxay sheegtay inay meel dhow biyo iyo sahay yaaliin ayna u kaxayn karto haddii uu baahdo. Wuu diiday. Waxay ku tiri haddii aadan tegin waad dhimanaysaa. Mar kale ayuu ku qayliyey iska tag. Markii haweeneydii tagtay eeyo duurjoog ah ayaa ku soo ururay oo dhinac walba ka soo weeraray. Xilligaas ma uusan lahayn awood uu isaga celiyo. Meel aan ka fogeyn qof ayaa wax walba si aamusnaan ah ugu daawanayay durbiin binoculars. Markaas ayuu ninkii ogaaday runta laakiin waa goor ay goor tahay. Ninkii miskiinka ahaa waxaa khiyaameeyay saaxiibkiis. Markii ay cirku madoobaaday saaxiibkiis ayaa la yimid cagaf isagoo u socda dahabka. Hadda dahabkii oo dhan isaga lahaa laakiin fallaar ayaa si lama filaan ah laabta uga istaagtay. Dadka isoo weydiiyo filimka magaciisa waxa waaye Gold 2022.